قفك مؤمن كاهي إنه اعتزاز أما فان وكفان الدين تيسا يوحى الرميسي noloshiisa adduunyo noloshiisa aakhiraba wixii wax tarayay waa shay dabiici ah bini aadamku guud ahaan waxyaabo kala gedisan buu ku faanaa dadka badh ayaa faanka iyo mansabka iyo weynida ka daya xoolo dabeetana inuu maalqabeen yahay buu ku faanaa dadka badh ayaa jaaha iyo mansabka iyo sultada iyo baawarka ka raadiya wax lagu faana inay noqoto dadka badh ayaa cashiirada iyo qabiilka iyo reerka uu ka dhashay mooda wax lagu faana inay tahay dadka badh baa jinsiyaadka iyo qowmiyaadka ay ka dhasheen ku faana laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagu barayaa alictizaazu billah waliltijaa'u ilayh ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu ku faanno inaynu rumaynay oo raacnay oo isagu uu weli inoo yahay waxaa qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa iimaanka dhabta ahi inuu yahay inuu qofka muslimkii rumaysan yahay alciza oo luqada carbeed laga yaabo lafdiga caza yacuzu caza yacizu caza yacazu saddexdaba ku yimaada ilaahay inuu keligii iska leeyay subxaanahu wa tacaala weynida iyo cadamada ghalabada iyo xoogga isagu cidduu u gargaaro ama se uu sharfo ama uu mudnaan siiyo uuna inay tahay cidda magaciya maamuuska leh waxaana min sifaati ka mida inuu almuciz yahay ka isagu wax xoojiya saa awgeed maadaama cizo dhan uu isagu leeyahay wuxuunbaa cizo yeelan karaa cidduu isagu siiyo man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica war ciddii manca ama xoog iyo magac iyo maamuus raadinaysow falilaahi alcizatu jamiica ilaahay bay cizo dhammaanteed u sugnaatay ciddii isaga markaa rumaysa ee raacdaana ilaahay kuwaasuu siiya walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun sharaf iyo magac iyo mudnaan iyo xoog iyo ghalaba si aad u fasirto kastaba ilaahay bay cizo dhammaanteed u sugnaatay iyo cidduu siiyo ah rasuulkiisii calayhi salaatu wasalaam iyo dadka mu'miniinta ah munaafiqu se ma garanaya baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ciziga cagsigiis waa dullinimo ilaahayna wuxuu leeyahy watucizu man tashaa watudillu man tashaa biyadika alkhayr nabigaa lagu yidhi qul allahuma maliki almulk ilaahu adigaa boqortooyo dhammaanteed iska leh adaa ciddaad doonto mulkiga siiya ciddaad doontana ka qaado ka siiba ciddaan doonto adigaa cizeeyo cadamo u yeeliyo weyniyo koris geeya watudillu man tashaa ciddaad doontana adigaa dulleeya waxaa qur-aanku inoo tilmaamayaa qofka mu'minkii xataa goob dagaal haddii laga xoog bato inuu casiiz weli yahay walaa tahinuu walaa taxzanuu وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آيات waxay soo degaysay غزوة أحد markay muslimiinta laga xoog batay ilaahay uu leeyahay liidanina ihaanaya idinku dhicin hana murugoonina wa antum الأعلون إن كنتم مؤمنين idinka koreeyaba ilaahay yiri
هدي أتين كوا مؤمنين. أحبتي في الله، قفكو حيسويدين يا حقوق كتر سنان يسو مقع ما مصيره محو أمان كدغنيا. إلهي قرآن كوحكو لي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا كور في عنبا إلهي لي عدك هذا في عني مجرتو نينك ضدك إلهي ويارا ممن دعا إلى الله لا إلى مبدأ آخر. قفك إلهي ضدك ويارا ربي قيود إلي كحرمان عابدان كلي كدن بيان أن عدك ويارين وعمل صالحا إساقنا كردك ما وحاودتك وياريو وعمل صوبا صمينيا وشرفتي ماموسك كدية عمل كاسو إلهي سبحانه وتعالى كعابدية. وقال إنني من المسلمين بإلهي ومركا شاغانية وكفانية إنو كتر سنة هيدتك مسلمين تا يعني إلهي سبحانه وتعالى وحكي لي وحيابا قفك مسلم كي انتماءاتك وتربدين بنادم هو حشاكته ودن هالنقطة قبيل هالنقطة مبدأ هالنقطة وحي دون سوكال هالنقطة. لكن إلهي كو تلمام ييني أمانيهين وكو إلهي دادك وياري إساقنا وناق السمايي كفانا يوشيغانا يا انتماءه إسلام كينو نسبة شاكته. وقال إنني من المسلمين سيدا وقيد با إلهي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إساقو القرآن كقول هذا يوحل ويري قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إلهي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيله حتى هذا صلاة دايدة هي قور عيقا مع عبادات كيقا هي نلش الدمان تيدي قيري دبا إلهي بان أولجه هي سنية إلهي كالي باس كلام نلش الدمان تيد وحي إلهي كرر لي هي وما صمينيا عدنا وشريك يالي مايو سيدا سال لي فري وأنا أول المسلمين شاقبا إلهي سبحانه وتعالى وحانا هيده مسلم كان نمبر 1 كواه dadka sheeganaya islaamnimada ka koowaad. ilaahay marka quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa meesha aynu magaciya maamuuska ka doonna inuu noqdo ilaahay diintiisa waxaana diintaasi ilaahay ku sheegay kamaal inay dhammaystiran tahay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diinan. ما انتبه إلهي إليه سبحانه وتعالى وحندين كامل يالي علماء اللغة وحيد هذا كمالك وحل هذا ما لا يقبل الزيادة شيء كان زيادة أقبلين وحكلا له قدر أقبلين دين تاني إلهي وحلي ويدا ما يسترنته وحكلا له قدر ما أقبشه ساوقيت با إلهي وحلي دين تي أقول رقم لهيدين واندين كامل يالي نعمة إذا واندين دم يستري نعمة واقبش زيادة ده وده نعمة جنوين كي وحكله بدن باشرة ورضيت لكم الإسلام الدين إسلام نمنا وحان دين كرال النقضين الدين دين عاطف تسوحي تلمام سقفك مسلم كاهي دين كاملة وإلهين الرال لكي هي مبدأ إنه هيستو أي إلهي إلهي سبحانه وتعالى كفان وكتر سرو أرنكاسي وحو كان سنيا قفك مسلم كاهي واحد دين تكمد إنانو يريسنين دين تكو مجرتو حلقة خدشلا سيبا مركا دول قالادي داد قالادي كوان دين رميسلين لنن دول يهي دادكو وحيابا قاركود وحي مودانين أي ملا هبونان لهيدين هذا لغاريو لكن أصل كوحو يهي
دينتني waxay ka timi min xakiimin khabiir ila xikmad badan caliima khibro badan saa awgeed wax diintan ka mid ah oo qofka muslimka la yaraataa inaanay jirin niman mushrikiin baa cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii waxay isku istihzaa inay ku sameeyaan inay ku jeesjeesaan saxaabo marka Salman al-Farisi saxaabigii la oran jiray baa wuxuu yiri waxay yiraahdeen kuwa mushrikiin oo la hadlaya saxaabadii baa waxay leeyihiin waxaanu aragnaa saaxiibkiin nabiga u jeedaan calayhi salaatu wasalaam inuu wax walba idin baray حتى مسقش صالو استعماله حتى القراءة وأري عندكم مركي عادي جوا هذا ليان أفك صامرين لكن وحي الربان إن يكون دوران مسلمين تا وهي مركي يكون دوران يوم وحكي للداية حتى مسقش هذا السيد يدق لي هي بيدين تكور رميسا صحابة هذا لو دوران يا مركا لكن سلمان الفارسي أما الصحابة كاني ما كخدش لي مسألة ده مركي الله شيء ما يا وكفانا يسوق شيء يا ولبا ها بودي أجل ها وانا برا النبي وحك استبا مسخوش أتكور رما يسوحوا النبراي مدكتينا لقو استنجون قبلتنا إنا لولا شيء سنين سحرة دي كاددة وحنا قربي سالة iyo lafaha iyo waxa inaan wax iskaga tirno waxaanu nafaray istinjaaga 3 maraa 3 ahjaar inaanu ka yeelo maxaa meesha ka muuqda ninka gaaleed ama qoladan gaaleed waxay rabeen inay tilmaamaan erayo istihzaa oo ay muslimiinta ku xaqirayaan su'aal marka laga xishoodo sheegeeda ay marka sheegeen iyagoo moodaya saxaabiga kan inuu waxa ka khajili doono oo ka warwareegi doono isna yactazu bihi in la baray oo ilaahay xaqiisa ay ka timo diinta ka mid tahay ayuu markaas ku faanaya wuxuu tilmaamayaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam na baray waxaan wadalnay markaa qofku kalsoonida diineed markay ka lunto markuu ku dhaco waxaan yiraahdaan inferiority complex inuu dadka ka hooseeyo ama diintiisa wax laga la xishoodo inay tahay markuu ku dhacdo ayuu wuxuu ka xishoodaa waxyaabo diintiisa ka mid ah waad muddo inaanu kalsooni badan ku qabin tacaalimtiisa diinta ama aanu ku faani karin halka cagsigeeda laga yaabo inuu ku faanayo dhul uu deganaa iyo qoom uu ka tirsanaa iyo qabiiladiisii iyo ama base shahaadaadkan bini aadamku ay siiyaan waraaq lagu yiri waxa waa taqaanaa ayaa laga yaabaa inuu ku faano oo cilmigu uu faano noqdo ama mansab wasiir baanahay CEO shirkadeed baanahay professor baanahay wax xirfad farsamo hunguri buu ku faanaya wax lagu xoogsado bariska lagu raadsado diintana uu ka khajilaya halka ay ahaan lahayd aghla nisba waxa ugu qaalisan oo ku faani lahayn inuu yahay muslim baana wuxuu ka jecel yahay almuhandis alkabiir iyo الطبيب الجراح iyo erayo noocaas in la yiraahdo titleska inuu qortaa buu ka jecel yahay ila ogaado inuu muslim yahay wuxuu ka jecel yahay in la ogaado inuu dhakhtar weyn yahay inuu muhandis weyn yahay inuu khabiir yahay inuu kan yahay waayo sheekhnimo ama faqiihnimo ama caalimudiin ama aqoon diineed ama muslimnimo baan u muuqanin in wax lagu faana ay tahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay wax kasta oo bini aadamku uu ku faano oo bigayri alislaam inay jaahiliyatay laba saxaabi baa afka isla yara dhaafay arrintu ay ka yara xumaatay waa saxaabigii la oran jiray بلال ابن الرباح إيوه أبي ذر الغفاري أبي ذر بأمريكا أنتو حناقي أيوه حكو عاي إنه يمدو كيري حبرتي كل شيء مدو بين بكيري
dabeetana weedhii baa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi acyartahu biummi waar ninka kan mahooyadii baad ku ceebaysay kaanama uu midab ku faanayo dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi innaka mra'un fiika jaahiliya waa saxaabi min asaabiqiina alawaliin ka mid a laakiin waxa uu nabigu tilmaamayaa innaka mra'un fiika jaahiliya waxaa tahay nin weli rawaasib aljaahiliya wax ku harsan yihin islaamku wixii uu dadka ka xoreeyay ka keenay wax ka mid inay weli kugu harsan yihiin baa jirta buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waayo ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa markaad magac iyo maamuus doonayso ilaahay sidaa ugu kala dhowdiin weeyaan inna akramakum cinda allahi atqaakum waxa idinku karaamo badan ilaahay agtiisa kuwa ilaahay idinku dhow kuwa ilaahay idinku alla ka cabsi badan leh ayuha alaxiba maanta waxyaabaha celebrity-ga ah ee dadku uu ku faanay lagu soo caanbaxay waa wax kale waxaa laga yaabaa dhallinyaradu inay isugu faanto waxaynu odhan karnaa waa thaqaafatu tafaaha culture-ka liidashada culture-ka bilaa macnaha in la isugu faano waxaa laga yaabaa in goobaha dhalinta isugu timaado laga dambeeyo ninka naadiyada iyo abtaashooda iyo nujuumka iyo hebel tiimku u cayaara iyo tiim hebelinta goola u dhaliya iyo waxaan ka warramaya wamaca dalik ninkaa tiimamka gaaleed qaybsan ama cayaartooyda magacooda haya haddaad weydiiso kuwii ugu mudnaa dunida tan dadkii joogay yaa ka mid ahaa ambiyadii iyo rusushii yaa kaloo ka mid ah innaga nabiyullaahi moxamed qaar dhulka kor socda buu ku yidhi adigu jannaad galaysaa jannada ma taqaanaa ninka ugu boos yar janno baa la yidhi cirkan iyo dhulkan iyo waxaanaynu arkayno oo dhan tobanlaabkii buu leeyahy waa kuwii ugu boos yaraa kuwaas iyo naarta ka soo baxay maxaad malaynaysaa kuwa xagga hore ka gelaya ee bikayri xisaab ku gelaya waxaad qiyaastaa qof dunida kor socdoo la yidhi adigu jannadaad leedahay waa 10 almubashiriin biljanna baa la yidhi waa 10kii jannada loogu bushaareeyey waxaa laga yaabaa haddaynu isweydiino 10ka jannada loogu bushaareeyey waa kuwa ma inaynan magacyadooda garanin inta ugu badani waxaa laga yaabaa cumar iyo abubakar iyo cusmaan inay sheegaan ama cali afarta khaliif inay sheegaan waxay ahayd kuwaasi inay noqdaan wax qof waliba uu garan karo waayo waa dad ilaahay agtiisa magac iyo maamuus ku leh waa dad garashadoodu ay tilmaamayso abtaalulislaam inay yihiin idan ayuha alaxiba dadka markii inferiority complex ku dhacay ama galbeedku ay u hanjabeen dad badan oo muslimiina waxaa la yimi waqti madaahir alislaamiya aan lagu faanin oo maalan luqada carabeed la yeeso iyadoo luqada quri ee salaadi ku asaxdo ilaahay uu ka aqbalayo faatixada akhriyaysa af carabiya wamaca dalik waxaa laga yaabaa dad af ingiriisi ku hadashay in lagu soo dhaweeyo oo la yidhaha ninkani waa ilbaxya waxbuu kala garanaya haddaad se luqadu qur-aanku ku qoraa wax ku tilmaamtid in loo arko qofku qof aan wax badan ogeyn inuu yahay waxaa laga yaabaa madaahirtii islaamiga ahayd gadhku inaan lagu faanin gadh xiirnimada lagu faano laakiin u fiirso markii aynu lahayn nebi maxamed baa gadhka la baxay ama abubakar baa la baxay ama saxaabadaa la baxday waa ta'wiil baa la raadinayo ma banaantay waa iska banaantay in la xiirayo waxbaa la raadinayay laakiin NBA-gu markay la baxeen dadku gadh buu wada yeeshay kuwa basketка ciyaara markay gadhkana la baxeen madaxna iska xiireen dhalinyarada madaxna waa xiiratay gadhna waa la baxday oo gadhku waa keed shalay ka faanaysay maxaa maanta ammaan ka dhigay muxuu maanta ammaan u noqday haddii shalay baa laga faanayay yani yaftakhir kuwan ku dayashadoodaaynu ammaan moodaynaa halkaynu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku dayashadiisa ku faani lahayn waxaa laga yaabaa cibaadaadka in xataa laga khajilo
halkaad odhan lahayd ilaahay baan u sujuudayo ku faani lahayd salaad inaad tukato uu faan kuu noqon lahaa inuu noqdaa baa laga yaaba waxaad tidhaahdo arma asxaabtaada iyo kugu ceebeeyaan aad qarsato salaada soomka aad qarisay inaad soomantay laakiin imika waxaad moodaa soomku xagga ammaanta kusoo biiray soo maaha hadda waxay yidhaahdeen soonka kala googo-an waa lagu caafimaadaa waa kano Nobel Prize bay ku bixiyeen dabeetana iminka soonku inuu wax fiican yahay waayo Nobel Prize baa lagu bixiyey soonku inuu wax fiican yahay hadda reer galbeedkaa sheegay ma ilaahay markuu sheegay inuu ammaan uu inoo noqon lahaa mise markay iyagu sheegaan waxaad moodaa muslimku libaaskiisa inuu ka baqayo dharka muslimiintu xidhaan kay doona ha noqdo qabiis ha noqdo shaari macuus ha noqdo wuxuu doonaya ha noqdo marada dadka muslimiinta xidhaan waxaa laga yaabaa in lagu faano albadala suud in la xidho inkastoo la iskuba hayo suudka yaa lahaa oo suudka taariikhiyanada baa waxay ku doodayaan inuu badla shaamiya yahay asliyan iyagu kan yara cunaa lagu xidho iyo waxyaabahaas bay ku dardareen iyo dhaldhalaalin yaroo laga dhaldhalaaliyo waxyaabahaas laakiin maxaa ka dhigay qofku markuu suudka xidhanayana inuu aragno qof yacni neat oo qurux badan markuu maradii dhaqankiisa xidhana inuu u muuqdo qof yara reermi iyo nolosha ka dambeeya ama aan yani waxa weeyaan waxaynu ku faanaynay baa isbedelay waxaynu ku faanaynay ayaa isbedelay waxaa laga yaabaa saxaabadii iyo magacyadoodii in loo arko iska magacyo qadiima salaantaa tiraahdo naynanta ma u bixinaa khadiija ama faatima kuwaas waa magacyadii gaboobay bay leedahay maxaynu u bixinaa yasmiin iyo maxaa la yidhahdaa ibtisaam iyo maxaa la yidhahdaa magacyada dambe haddaanay baarliin iyo yuruba u bixinin yani xataa qofku marka laga xoog bato waxaa muujinaya xataa magacyadiisii inay wax liita la noqdaan magacyadiisii xataa kuwii muslimiinta ee kale kuwii soomaalida caadiga ahaa geedi iyo guuleed iyo warfaa inay kula liitaan iyo macwi iyo mayow laakiin uu ammaan u arko magacyada reer galbeedka lagala baxo ama kan lagala baxo ayuha alaxiba waxaan leenahay diinta aynu rumaysanay waa inay noqon kartaa waxaynu ku faano kuwaasi waa dhalinyarada odayadu may ka fiican yihiin siyaasigu wuxuu leeyahay dowlad dimuqraadiyana haddaad tiraa dowlad salaama ma hadarkaa inagada wuu ka yara khajilaya in la yidhahdo dowladdeedu waa muslim laakiin wuxuu ammaan u arkaa in la yidhahdo dowladdeedu waa maxay waa dimuqraadi ama waa kan ama erayada in la isticmaalo seebuu u imanayaa qur-aan inaynu isku xukunnaa iyadoo islaamnimada inaad ku faantaaba ay ceeb kuula muuqato islaamnimada inaad ku faantaaba iyadoo ay ceeb u muuqato seebuu u noqon karaa nidaam ilxukmi ama wax la raacayo laga dambaynayo u noqdo dadku markay u arkaan waxay ku faanaan diinkoodu inuu yahay markaasay isku xukumi karayaan laakiin waxay ka faanayaan hadduu yahay dee ma wax laga faanayaad odhan kartaa isku xukuma diba laga faanayo ma odhan kartid xukum ha kuu noqdo bale inaad tidhaahdo dowlad muslim waxaa laga yaabaaba hadda inay noqotay tuhmo iyo jariime iyo dembi laysu qabsado kan islaam buu doonaya in wax lagu xukumo in lagu yidhaahdo war islaamku waxaa wixii lagu faanayay ilaahay wuxuu leeyahy waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub markii laga warramay xajkii neef xooloo lasoo kaxeeyey oo la suday kuul yar luqunta ama xadhig luqunta loogu xidhay tilmaamaya shicaarul hadyi inuu yahay wixii ilaahay loo hadiyeeyey xaramkiisa calaamadii inuu yahay ayaa ilaahay wuxuu leeyahy waman yucadim shacaa'ir allah ilaahay waxyaabuhu shaciiraadka tilmaamaha xajka uga dhigay cidda weynaysa fa innaha min taqwa alquluub baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waa waxyaabaha qalbiyada taqwa alquluub ayay ka tirsan tahay baa la leeyahy wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka subxii markuu waagu u baryo yidhaahda raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا
qofka yiraahda ilaahay maamulkiisaan raalli ka ahay rabbinimada alle ayaan ogolahay islaamnimadan diinu haystaa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam bar rasuul haystaa غفر له ذنبه ونبوي دمجيسا بلا دافيا waagu markuu ku bariyaad bilowday inaad qirto oo ku faantid inuu ilaahay rabbiga yahay islaamkuna inuu diintaadii yahay nabi maxamedna inuu yahay rasuulkii ilaahay soo diray aad raacisay inuu yahay waagu markuu ku bariyaad ku bilowday waxa uu nabigu tilmaamay alayhi salatu wasalaam qofka dambigiisa la dhaafayo waxa ku faanaynaa inaan muslimnay waxaan ka faanaynaa maqduuba calayhim ya wala daalin inaan ka tirsanahay كوه كفانينا ولذلك أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام وحيا بابا ضنبوت المام مشركين تيا قال دي وحي سمينين الخلافة لأن قمدي يدي ما كصاب سنة كما هو الربع إنه ساينس يا علمي يا وحيا كاسدت بني آدم كون حيا عدقاروا له ما جرتو أما نقمضي يا وحيا بها الله حديده يديمها يا وحا الله حديده وما تقولي بكذا إلى أيها الأحبة وأنا من المسلمين كوين أمان نقضة وقفك مسلم كفار في سورة الأنبياء إلهي وحكا صور من نبيه أنبياء الله سوتري سورة الأنبياء نبي ذا مركي إلهي كصور رمي بآيات الصغاشن يلا بات أي إلهي وحلي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أمدي الناس بايدي إلهي أمدي الناس أمد قراتين يعني هل يدي الدبس عتيبة إلهي كوت المامي الرسول شاي النبي ذا هراء لصاط حي دبتنا إلهي وحلي أمدي الناس أمد قرا ودتين من آدم كصاب بلا وحي الرسول يا النبي صام مرة يسكو كوح بينهم وحي مسلم صام مرة إلهي وهو جان سمي يسكو كوح بينهم ساد ردد با إلهي ليه تاريخ دينية حضارة دينية تراث كينا كفانيسان وكادت كصالحين تا يا إلهي أولياء دي سؤال هاي أيها الأحبة سفان كاغو سورته وين أتقرطا إن دون نسبة شيئا كوكبا من الأنبياء بن آدم يو فضل بدن رسول النبي وجروب كي إلهي دتك كنح دورتي كوا إن تسفكو دا كبيرتي وجروب كو دا كتر سنتهاي وأمدا كتر سنتهاي ووح لغفانه وح لغفانه معها مسلم كو فانا يا دين كيسة دين صح حق إلهي كيمي نظام ودتي رب السماوات والأرض يعلم السر وحك استأليه يؤجا ديم قال الله أنت طبعا بني آدم كنت هذا طبعا تغانا طبعا خبير ديم يلا دتي ولا طبعا خبير بقى وحن صاقري وحلونا يا علماء الدنيا أنت اللي سوق جاي وحكان شيء يدو بني آدم كو حوق يبقى يريهين هذا مرينيسا رب السماوات وحكيمي إله عالمك خبيرك وحكيمي ما هذا مرينيسا إلهي وحينات المام يقفك مؤمن كاهي أذل على المؤمنين عز على الكافرين تتكلم مؤمنين تانا قف قدم ريا ويصلوا اللقاء عدان مبادئ ذاك لها ستنا ننسكر دعية إنوي وها قرآن وحينات المام صفات كمنافقين تينا كم تهي وحان الله يا رسول أمانين يفان كضيان إلى يحدى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين كوا كردغنا يقالك ولي يسكي قرابو مؤمنك سوى كعررية إلى يحدى أيبتغون عندهم العزة أرك كان معزة شرف بيكون رادينيا مثل منعي قوة يكون رادينيا إلهي وعلي فإن العزة لله جميعا وارعزة إلهي باسكالي إلهي بلغ الرادية حتى مؤمنين تمركا يتشابين غزوة أحد ويتشابين قال حوبتي أبو السفيان بابور كوري مركا وقايلين إياه أولي أعلو هبلو كوريه هبل وصنم صنم كيسيبو أماننا يا أولي هكوريه markaasuu nabigu yiri war ma u jawaabtaan wuxuu diiday nabigu inta meel la koro in sanam la amaano muslimkuna iska aamusanaado war ma u jawaabtaan buu nabigu yiri alayhi salatu wasalaam
markaasay muslimiinta aamusay markii dambe ay dhaaheen maxaanu nidhaahnaa waxaad tidhaahdaan buu yidhi allahu aclaa wa ajal dhaha waar ilaahay baa ka koreeyo ka weyn dhaha waxaad ku faanayso alla ka weynoo ka koreeya abu sufyaan oo gaala haddana qayliya wuxuu yidhi lana alcuza walaa cuza lakum sanamkii cuza baanu leenay idinkuna cuzana ma haysataan cuza waa casiis la dhadigeeyey lana alcuza walaa cuza lakum buu yidhi annagu sanamka cuzaam leenay idinkuna cuza ma haysataan nebigu wuxuu yidhi waar ma u jawaabtaan waxay yidhahdeen maxaanu dhahnaayo wuxuu ku yidhi allahu mawlaana walaa mawlaa lakum dhaha ilaahay baa noo weliya noo gargaara ah noo hiiliye ah walaa mawlaa lakum wax idinka idiin hiiliyana ma haysataan ku dhabuu yidhi ayuha alaxiba muslimku marka waa casiis xataa wain gulib halaba xoog batee idan wax lagu faano mabaadi'daad haysataa ugu weyn oo ah diin carabi iyagoo dadaan jirin ah ayay diini u timi markaasay wax jira noqdeen laba dowladood oo waaweyn baa dunida ka jiray oo kumaankum sanadood soo jiray dowladdii romaniska iyo dowladdii eeraanta bershiya saxaaraha carbeedna lama degaan buu iska ahaa aan maamulba ka jirin ee ninba ninkuu ka xoog badan yahay uu boobo waxaan jiray nidaam qofku hadduu halkan ka dhaqaaqo in yarba gurigiisa markuu ka baxo la afduubo qabiilka kugu xiga ku afduubanaya oo see lagu odhanaya waa lagu iibinaya addoon baad noqonaysaa ama madoobo ama caddow waxaas kuma saabsanayn addoonku waa un budhcad dadka qabata oo dabeetana iibisa iyagoo noocaasi oo aan dowlad iyo waxba toona lahayn oo filiqsan ayaa islaamnimo u yimi diintan baa ka dhigtay dad casiiza oo jira diintan baa ahayd siru najaaxiin sababtay u guulaysteena labadii dowladood ee waaweynaa bay markula dagaal ku qaadeen labadiiba jilbahay dhulka u dhigeen dagaalada qaar ka mid a markii la gelayay meeshan imika la isku haystay bayt almaqdis muslimiintu markay furanayeen ayay nimankii bayt almaqdis joogo masiixiinaba waxay idhaahdeen waanu isdhiibaynaa bishart furaha magaalada waxaanu u dhiibaynaa amiirulmu'miniinkiina heshiiskaasuu la galay ciidanka ninkii hogaaminayo abu cubayda ibnu aljaraaxa saxaabi ka mid a casharat almubashiriin oo ciidamadan watay ayaa heshiiskaa la galay heshiiska markii lala galay cumar baa waraaq loo diray waxaa la yidhi nimankii adigay furaha kuu dhiibayaan ee kaalay cumarna madiinuu joogaa bayt almaqdisna waa looga yeedhaya awrkiisuu soo fuulay isaga iyo nin hogaanka u hayo marna isagaa fuula marna inankan baa fuula marna awrkaaba la nasiiya waa la lugaysiiyaa markay ku soo dhow yihiin halkii nimankii madaxda ahaa ee magaaladan qudus haystay iyo ciidamada muslimiinta nimankii hogaaminaya wixii oo dhan baa ka soo horbaxay markay maqleen cumar waa soo gelaya cumar inta yaanu soo gaadhin wuxuu soo maray meel biyo fadhiyaan oo dhoobo midhana meeshii dhoobada ahayd ayuu labadii kabood ula baxay labadii kabood buu soxollada gashaday baa la yidhi awrkiina wuu hogaamiyey intuu faytay buu soo dhex maray markaa cumar wuxuu saxaabadii ku soo baxay markaa isagoo awrkiina hogaaminaya kabihiina gacmaha ku sita cagahana dhoobo ku leh waana amiirulmu'miniin labada dowladooda waaweyn ninkii cagaa dhulka u dhigay weeyaan markuu soo baxay ayay saxaabadu waxay abu cubayda wuxuu necbaystay hay-adan inay cumar ku arkaan qoladanina dee wayse soo xidhxidhay oo wuxoodii baa lasoo waa hindamaan baa ka muuqday yacni waa la isqurxiyey oo dee waxaa lala kulmayaa dowladda weyn ee muslimiinta ninkii madaxda ka ahaa baa la rabaa in lala kulmo marka qolo waliba isa soo qurxisay cumarna isagoo cagaa dhooba kule gabahana gacmaha ku sita buu soo galay waxaa arrintii yara jiri diiday abu cubayda bnu ljaraax markaasuu wuxuu ku yidhi yaa amiir almu'miniin maad sidan wax ka bedesheed erayaa buu tilmaamay awah buu cumar yidhi markaa yacni kelima ah wuu tawajuc wuu hadalkaa necbaystay
أديك عدارة هين ما يكسب بحد بوليه ويداس يعني هذا أبو عبيدة هين كوي جنة الله قبل لنا هذا شقا كان قبل له ويا أنا ضو حق واحد للايد واحد ده كم تايكو نبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كورس عضو الجنة هذا دبيتنا عمر بامركا وحو حدلي عمر ويليسي وحكم ده صدر ورد ما يستر الإمام الحاكم بسوء رورينيا شخر البان صحيح وكنت المامية عمر بحدلي وحولي إن كنا أذل قوم وحنوا هين دتك الدنيا كن نور دتك وليته فعزنا الله بالإسلام ويلي دبتنا إلهي وحن مقعيا ما مصر نوغي يولو نوحوشي إسلامني ما ضدنا قدك طيبوا لي أول وحنا هين من كان بختك عنا وحا نوع أو نول لكن إسلام نمو أي قيمة نوية شيء بولي فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله حتى نكرر دي النبو لي عزة الشرف يا مقعيا ماموس وحان الله أهين وحان إلهي نقول عزين وحان يندان وكرادينه إلهي وانا ذلين يا أبو عمر لي عمر وحو لي يا هي مريا إيا وحاد دوني دون نقوم أقبالين إيو عقاهي قردوبالا إيا كباها قعما كسيتايا أرمو كاما أبو لي أرمو حويان دين با إلهي دادنا قردقي إيا دانو إلالين أبو لي وحانو عزيزك كنا هيواطن إما هسيدانو إيقنا يا موحانوني أيها الأحبة قوشودو مركا waxay ku jirtay markay ilaahay ku xidhmeen markay hunguriga adduunyo meel iska dhigeen markay aqbaleen naf iyo nafisba inay u bixiyaan diintan isay casiis u noqon lahayd kor u noqon lahayd ayay iyaguna cizo yeesheen ilaahay kor yeelay in tansurullaha yansurkum wa yathabbit aqdamakum ma umar oo quraamay saxaabadu saasay ahayd waxaynu garan karnaa kuwii loo diray قالت كلا لكل مي إمام البخاري وحساء رورينيا عندما دي جيش كي كسرى لا دري قيب كم إذا وحه قاميني النعمان بن مقرن صحابي لورنجري مركي دقال هذا الله صوق علي ورير كسرنا أفرتم كونوا عيدنا إيميل كان صدين أيوه يجري وارب الكالية أن وضع هذا الله ninkii ciidamada gaalada wata nin saxaabada kamid ah marka ay dhig ana hadlaya Mughira ibn Shu'bah Mughira intaanu islaamin burcad buu ahaa ku nabiga uu yimid isagoo 13 intuu dilay xoolana wata buu ayuu islaama nin iska burcad oo aynkaas ahaa marka kanna isagii ba hadlayo muslimiinta uu hadlaya مغيرة بن شعبة بابو سل عما شئت حديث البخاري كويها واحد دونتي ويدي قال ما أنتم هيدا بال ويدي مركب ورنمكن كان دولدي ويني دي بيرشي اسكو صوم دقيقي هيدا بويدينيا وحيد أنا كوح عرفت كميدا بارنا هي بيودي وحنو هانجر بيودو كوا كديد يدب كل نور كنا في شقاء شديد وبلاء شديد بيودي كديد يدب ضد كل نور راحلة أنكو شرين بارنا هي بيودي نمص الجلد والنوى من الجوع قاش الدراد ديدنا لفت مراد لعني بانو مود سنجر نبيولي هرق ايام نمودي شرنا مود سنجر نبيولي ونلبس الوبر والشعر هنا وحنوها هدر كلمة نهيسانه هرقها نكرق انه رغرتا حولها هيها ونعبد الشجر والحجر جيت كي نجحنا سرمان وكدغن جرا وعابد جرا annagoo nolosheedu caynka tahay buu leeyahay oo cibaadana dhagax caabudna iyo dhir maryana waxa dhogorta aanu hargaha aanu saama haysano gaajo daraadeedna lafta aanu muudsano dhibta anagoo ku jirna ayaa ilaahay noo soo diray buu rabbu samaawaati wal ardi baa wuxuu naga soo dhex saaray nabi aanu abiyo hooyadiiba garayno yani nin wuxuu galiyo wuxuu gudabaanu garayno oo nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam waxaanu nagu yiri buuli ilaahi kaliya caabuda oo wixii ilaahi ka soo horjeesta la dagaalama ilaahi inay jisiyo bixiyaan mooyaane
وحكلون نوشة جيبولي عدي أنا كان قدي بطامر كانوا دجال كوشرنانين الجنة جلسوا عدي إذن كايدن كدي بطانا إن أنا يدي جنة هليني عدي صاحر دانا عدي أنا قدي بطا جنة جلسوا بولي عدي صاحر دانا مدحين كتالين دونا بولي marka anagu labadaas baan u qaybsanaynaa in janno gashay iyo in idin talisa saas baan u noo sheegay buu yiri ragii loo diray Saad ibn Waqas diray waxa kamid ahaa Rib'i ibn Amir Rib'i ibn Amir waa nin intaas oo bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad ka muuqdo dabeetana faras yaro gaaban isagoo watuu u yimi qoladanina waxay damacday inay hanjabiso Rustam nin la yiraahdo jarankii ciidamada haystay ayaa kaarbadka cas u xudhigay Ardullahi waasaan ayaa kaarbad cas la dhigay kaarbadkii casaabu soo duleeriyay faraskiisii dabeetana markuu soo dhawaado meel halkana barkimooyinkii meesha la daadiyay ayuu barkin ku xidhnaa uu ka soo daadegay markaas oo soconaya oo warankiisa sita waxay yiraahdeen boqorka waranka loolama galo hubka dhig xafiiska madaxtooyada lama galo hubka halkan sii dhigo waxay aniga idinka ay yeeray hubkayga dhigi maayo haddii rabtaan inaan la hadlana waan la hadli haddii kalena waan iska noqon haddaad tidhaahdaan iska tag na waan iska noqonaya waa loo sheegay ninkii madaxda ahaa waxa la yidhi ninkani wuxuu leeyahay anuu hubkayga dhigi maayo haddaad rabtaan inaan idinla hadlana waan iman haddaa ileedin iska noqona waan iska noqon doona warbar soo daayay buu yidhi maca hubkiisa isagoo situu soo galay waxaa la weydiiyey war maxaa dhulkiinni idinka keenay wuxuu isleeyahay gaajo iyo waxba keentee aan xoolo idin siiya iska noqdaad ku tiraahdi wuxuu ku yidhi ji'na linukhrija annaasa min cibaadati alcibaada ila cibaadati allahi waxda allahu btacaala ilaahay baana soo bixiyey waxaanan u nimi dadka adoonsanaya inaanu ka saaro dadku ilaahay adoomay wada noqdaan inaanu ka saaro jawri ladiyaan ila adl alislam diimaha kale iyo dhaqamada kale cadaalad xumadooda inaanu ka kaxayno oo diinta islaamka cadaaladeeda aanu geyno waxaanu soo baxnay buu dadka inaanu ka saaro min diiqi dunya wanika ka yimi saxaaraha waxba oolin ayaa wuxuu leeyahay waxaan idinka saaraya qoladiina kaarbadiyada casas dhigtay diiqi dunya adduunka ciriirigiisa idinka saaraya buu leeyahay oo ila sicati dunya wal aakhirah ayaan idin bixinaya ayuha alahibba dadkani markay diintooda aziz ku noqdeen ayay dunida ka taliyeen man ninka khajilaya dad kale u talin karaya markaa nin diintiisa ka khajilsan oo inuu muujisto aan awoodi karaynin muxuu xaalkiisu noqonaya waxay ahayn dad casiisiina سعد بن عبادة سعد بن معاذ صحابي اللي ورنشري هي سوء مرتقي حديث البخاري كيالا دبتنا وحكو سود أمية بن الخلف نكي اللي ورنشري صاحبه عنشري أمية مركو شام وحد دورانا أيوه سعد بكو سيدقي جري سعد والسلطان ريريت يسوون مركو حج يمادام عمرضة يمادام اللي جاهلية دي مركو هرب ولا عمريسين شري مركو يمادام أيوكو سودقي شري أنا أمية بن صفوان أمية بن الخلف أبي صفوان أمية مركو كسودقي يدو مكة قال ذو حيسطه كسور بينو عمريسته دبتنا أمية وحكويني وبالمشوى يرعي لي يا وقتي يرى ظهر كوكالا مركان أضيّد قريشات ماشى فردين مركا الدوافتي مركي وكان مركي والدوافي أبو جهل بابا كصابحي أبو جهل بابا حولي مركا ما أنت محمد سوه يسي وأن أمان ينبي القليص يسي أيات ربطين أضغونا أمان وقود دوافتي الآن كعبضة أيات ربطين كاكو دوافتي بويل وأنك دوافيا وقوم أبو يوم كسر وسعد بن معاذ الرسول تطوف بالكعبة آمنة وغداويت محمدا وأصحابه
ما نبض بعض الضواف هذا محمد يا أصحابتي سيسوهوي. سعد بن معاذ أبو جهل ورقة كمر لنا قال نعم بيقول تنوى ضوافيا قلنا أنا أنا بتقل يد السي تبت أنا هذا الكيبة تاج مي يسكوا العليا وميا وحيري سعد ونكن عدك كنت أكتا أبي الحكم ودوايل كي مقالة ده نكن صدا حول هذا سعد أبو السياح ناقي مركي اللي يدي وهي كي وأردنا يقام مبويري نبي محمد بابا كشاغين وكدلي دونه ما نو يدوا كدلي وقف كقوله ونبي كدلي وما يهكره سلانتي سيقول تجي دونا ورنا يعني كي صاحب كاي عين كاسو يقولوا وكدلي يا حبي حبا يقولوا تقال دي بدريه ما كان ادو غابيه وربينا نو بخين الا اللي يريد قريش بدقال تجي ميسا هذا ادو فديدو لا سو كعي ما نو قدن لي سعد بن معاذ iyadoo meesha jooga buu diintiisa iyo mabaadi'diisa casiis ku ahaa ayuha alahibba nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya dullinimadu inay dadka muslimiinta ku dhici doonto markay cizadooda diineed waayaan markay adduunyada dhankeeda u wacdaan walidaalika xadiidkii macruufka ahaa Abu Daawud wariyay wuxuu nabigu leeyahay إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هدي الدين تمال اسكن كتاب بالليلية أنا ودرتان إلهي درتي الدين تهداك تكتان وأقول نقاقضان حول شقيسك. تبايع بالعينة ونوع من أنواع الربا نقالة نقشو beera falasho waxa hadda u dhaqaaqdaan oo tan ka tagtaan baa la yiri ilaahay wuxuu idinku itixaamiyaa dulli aan laydinka rogin ilaa iyo diintiina u soo noqotaan mooyaan ayuha alahibba istashir reer galbeed shaati la yiraahdaa wuxuu leeyahay haddii aad rabtaan muslimiintan inaynu ka guulaysano waa inaynu hanjabinaa diintan ay ku faanayaan waa inay diinta u arkaan wax laga khajiro ama laga faanay inay tahay oo wax kale aynu u boonboonina markaas bay noqon karaan buulay kuwa ka xoog badan waa ficlan si hadda joogta hadda markay diintoodii ka khajaleen wax la qarsado kii ku dhaqmayana uu hoos u qarsado dawladuna ay kaba xishoodaan inay sheegtaan inay muslimiin iyo siyaasiyiinta iyo odayada iyo waayeelku dhalinyaraduna wax kale ay ku faanaan markaas adduulinimadu fuushay markay acizza ahaayeen diintan ku faanayeen ee rumaysnaayeen diin xaq oo xaq alla ka timi inay haystaan markaana ilaahay baa u hilinayo casiisiin bay ahaayeen oo ciise dhammaanteed ilaahay bay agtaal laakiin markay xoolo nabi maxamed ilaahay wuxuu ku yidhi walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacna bihi azwaajan minhum zahrata alxayaati addunya linaftinahum fiihi warisqu rabbika khayru wabqa الدنيا عندها وتاج ما إلهي النبي يسكوي عليه الصلاة والسلام تعلقوا مدرين وحبا عندها وتاج أيها الأحبة وح إلهي وذليي بين أمانك الرادين إن وضن الغفاني إن حول الغفاني إن قبيل الغفاني ريري توليرات كتمينات كفانتاية وحلمية إلى يعلي بل الذين كفروا في عزة وشقاق كوا قالوا بما إلهي سبحانه وتعالى في عزة مذمومة عزة مذمومة ويكون سجينيو إلهي يكرم بشيء هو ما عزاز كان مذموم كان حكم ده الاعتزاز بالآباء والأجداد نقول رير بلاد لابط لغو قراعة odayadeen iyo dadkan TV-yada ka hadlay iyo maxaa la yiraahdaa bahaladana gashaan magacyadooda maxay ahaayeen YouTube-yada iyo TikTok-yada iyo xataa dhalinyarada Yurub joogtaaba ugu badan kuwa laabta garaacaya reer hebel haddaan nahay leh nabiyullaahi muxamedna wuxuu leeyahay la yantahiyanna aqwaam yaftakhiruuna biaabaa'ihim alladina maatuu inamaa hum fahmu jahannam
النبي عليه الصلاة والسلام كوان توبين دول آباياشو دي دينتي النار تقالي كفانيا أو لا يكونن أهون على الله من الجعل أما إلهي أكتيسة حار والوالكي كقال لي دونا حال بليانو مسلمة كان دقاي مال عدلا وان دوني ده بس يكولاي وين بمالي وبريو وحود يلالو شي بحيان ummadda dhan oo dadka laaluush rabta inay ku noolaato dad iska laaluushto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina allaha ahwana cala allahi min aljucali alladii yudahdihu alkhiraa'a bianfi xarwalwaalka saxarada sankiisa ku jiida kaasaydin ilaahay agtiisa kaga liidan doontaan baa la yidhi ina allaha adhaba cankum cubiyata aljaahiliya waar ilaahay agtiinna وإذا كحيي عصبية جاهلية هي فخرها بالآباء آباء السوفانكي إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب النبي وأرضت كورنمي إما إنه مؤمن إلهي كبقييه ينو فاجر الله كتشاحديه أما حق أبترك هدي الله آدم بايدن وضع عليه بالليل أما مدوبة وما عطوا وما إن يرى وما إن بورو آدم بايدن وضع عليه وآدم خلق من تراب بالليل آدم عيد بلغا أبورا قبيل بي ما تيسقو فانسا إلهي قرآن كوحكو ليه قال ذا كفانتا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك بين هذا نبي شعيب وحكو هذا لسانه وحبضنا كم إذا ما فهمينه أدي أنا قف ضعيفا وكو أرقنا يهدي تلك لا إيهي يجا تلك لوين إلهي ولا موينا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز بين هذا أكتئذا مد عزلكم أتي يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله بليه مركا وارتلك يوم ما تلك يبقى إلهي ديك لوين وعقلك الصومالي ما أنت وكل رقميه النبي عليه الصلاة والسلام وحليه أفر الرمها الجاهلية ذي كم تيدتكن الدين مايان الفخر في الأحصاب وطعن في الأنصاب والاستسقاء بالنجوم والنياحة ونبوة المامية أيها الأحبة حول يسقفان ونقل قال وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا قال ما قفانا وحا أنا كحول بدنيو أنا كطول بدن ما هو حلو قفانا مريي دتكم ما تقفانا يعني مرضا حنا يسوي وقت هيو تيهبل من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة أيها الأحبة إننا نكفى نوحان إلهي يا حي هذي نقالتي هذي سياستي هذي ضدنمتي وحان ألا نسبة شيئا مركا الغفانو واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا با إلهي سكديس الله سكدي بي إلهي السمايستين سأي مقعو هلان بليد أما منعي غلبة يحوق هلان وحكا لي قاتين با إلهي أيها الأحبة مسلمين تهري وحي يقولوا يستين markay diintooda u arkeen wax qiimo leh markay u arkeen inay ka timi ilaahay cilmiga badan leh xikmada badan leh khibrada badan leh naxariista badan leh inay ka timi markay rumeeyeen diintan inay kaamil tahay oo aanay wax kale u baahnayn alyawma akmaltu lakum diina inay kaamil tahay wax kale u baahnayn markay taa rumeeyeen dabeetana kalsoonida ah ay qaateen inay iyada ku faanaan iyada ku dhaqmaan markaasay dunida ka taliyeen waqti aad u yar 2 sano gudahood ay labadii dawladood waaweyn intii ugu badnaa jabiyeen waa 2 sano gudahood ma ciidamay ku jabiyeen maya
laba boqoloo kun bay kuwani meelaha qaarkood keenayeen tirada ugu badan ee muslimiinta la sheegaana 30 kun bay ahayd ee meel isugu timi 200 kun iyo 30 kun bay iswaajahayeen oo waliba 200 kun maroodiyo wataan 200 kun oo maroodiyo wataan iyo 30 kun oo reer miyi iyo meelaha laga soo ururiyay laakiin rag oo kumanaanka u dhigma ay hogaaminayaan Khalid iyo Qaqaa iyo Barra iyo rag ninkiiba kun u dhigmo kaligii laakiin maxay ku ahaayeen diin bay casiis ku ahaayeen saasay waaqacadkii waaweynaa dunida bedelay ku dhacday koox kooban oo laga tiro badan yahay oo laga dawlad weyn yahay oo wax kasta la dheeriyay laakiin iyagu ilaahay bay ku tiirsanaayeen yu'izzu man yashaa bay rumaysanaayeen ويذل من يشاء كاسب الرميسناية مسلم مانتنا دينتي سوى كفاني أو كعرري أو كخشلي أو يران إنه كفاني يدعي إنه كنا ما هو كخشلي إن لو قاعد إنه مسلم يهاي وكخشلي إنه قد يشوا أما هو حوارك قروح ضيناني كم يدهين قروح دوام حي سنتي أفكا ما ينتصوحيرته ياي يري تاسا قروحا حتى أيها الأحبة وحلين إنه الدين اسكو حكونا وقال اسكو عيرنا وحاوحا كهرية إنه مبدأ آمنه هذا اسكو حكومي هذا تهمة بواركيسو الله الدين بدوني ين لينا هذا باي تهمتها إذن الاعتزاز إنه الدين تانا كنا قرنه إلهينا سبحانه وتعالى وحب الله قاضي عندي سقع عزة كالطلبتين الصينية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين